wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Somaliland ayaa waxa ay tababar u furtay qaar ka mid ah canshuur bixiyaasha iyo ganacsatada Somaliland sida warkan ku soo diray Maxamed Umar Daariq. tababarkani oo ahaa qaybtii labaad oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland ayay ujeedadiisu ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta ganacsatada iyo waajibaadka saaran ganacsadaha iyo waliba xuquuqda uu leeyahay. waxaana ugu horeyn furitaankii kulankaasi ka hadlay ku-xigeenka agaasimaha waaxda cashuuraha bariga Somaliland Khadarlaas waxaanu ku dheeraaday muhiimadda uu tababarkani leeyahay iyo sida ay tahay inay uga faa'iideystaan kasoo qaybgalayaashu keenna imika halkan nala fadhiya ganacsatada aanu ku marti qaadnay in ay nagala qayb galaan kor u qaadida aqoonta cashuur bixiyaha kaasoo aan jecelahay runtii waaxda cashuuraha bariga iyo cashuur bixiyuhu inay wada socdaan oo aqoon badan ay u leeyihiin cashuur bixiyaashu had iyo goraale cashuurtan la qaadee cashuuraha barigu ay qaadaan taasoo sahlaysa marka dambe inaan muran iyo jaafaajiriq midna aanu ka imaanin isla markaa waxaa jira xanaankan iyo systemkan iswada ee cashuuraha bariga aan ku wadno reform xoog leh ayaan ku dhex jirnay muddaba oo imika labadii sanadood u dhameeyay baa runtii aan ku wadnay kaana inaynu ka wada qayb qaadano oo aanu isla aragno reformka aynu waaxda ku sameynay waxaanu gaarsiinaynaa aan ku tala jirnaa adiga oo jooga gurigaaga inaad cashuurta bixin karayso isla markaana aad garan karayso cashuurta lagu leeyahay oo aadan weydiinin inaan shaqaalo oo cashuur bari ka shaqeynaya imisa cashuur igu waajibay aadan weydiinina intood adigu xisaabsato oo aad samaysato calculation-kaagii inaad dabeetana systemka ku upload garayso inaan kuna halkaa ka arko dabeetna uu approve gareeyo isla markaana ay kugu jirto lacagta halkii aad ku shubaysay oo juwankiina lagu siin karayo xanaanka aynu doonayno inaan runtii maanta aan ganacsatada amba cashuur bixiyaasha aan ku tababaro waa hababka iyo qaar kale oo lamida geesiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay Axmed Cabdi Cali oo kamid ah mas'uuliyiinta waaxda cashuuraha bariga Somaliland kaasi oo ka waramay faa'iidada kulankani uu leeyahay casharkan wuxuu ku saabsan yahay inuu istaaginaa casharkan wuxuu ku saabsan yahay oo loogu talagalay cashuur bixiyaasha awood waxaa loogu talagalay ganacsatada iyo ururada kale ee maxalliga ah ee bixiya cashuuraha kala duwan inuu u noqdo hage ganacsatadu waa inay bartaan cashuuraha laga doonayo bilowga waxna ka ogaadaan qaybaha mid kasta oo ka mid ah cashuurahaas cashuur bixiyuhu waa inuu ogaado cashuur kasta oo laga doonayo cashuur bixiyuhu waa inuu ogaado cashuur kasta oo laga doonayo waxyaabaha u baahan yahay inuu fuliyo ama uu raaco ugu dambeyntii isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdisalaan Maxamed Maxamuud oo ah agaasimaha waaxda cashuuraha bariga Somaliland kaasi oo ku dheeraaday ujeedada iyo muhiimadda looga dan leeyahay kulankan waxaanu fariin iyo dardaaran u diray kasoo qaybgalayaasha kulankani maanta waxaan furaynaa wajigii labaad ee tababarkii noo soo socday maalmahanba oo ganacsatada doonayna inaan kor ugu qaadno aqoonta ay u leeyihiin cashuuraha cashuuruhu isbedel baa ku yimaada fulino way ku timaadaa isbedel ku yimaada habka iyo nidaamyada iyo habraacyada loo qaado isbedel baa ku yimaada oo runtii wasaaraddu ay isbedel weyn oo xoogan oo casriyeen leh ay wadaa marka inaad nala jaan qaadaan kuwaana waan doonaa sidoo kale fulin baa ku timaado sharciga ee wasaaraddu shuruucda kala duwan ee wasaaraddu ku shaqeyso iyagana waxa ku yimaada fulino marba qayb baa la fuliyaa maadaama ay wasaaradda maaliyadda ka go'antahay in si dhammaystiran loo fuliyo xeerka dakhliga cashuuraha bariga waxaan doonaynaa xeerkii oo dhan inaanu barno oo nala ogaataan oo aynu ku wada shaqayno ku wada xisaabtanno insha Allah haddii la hadhaa marka labadaaba u daaran yihiin waxaa kaloo sidoo kale garab soconaya maadaama aanu leenahay waxyaabo badan bay wasaaraddu tasiilaad badan bay fududeynaysaa oo sida ay cashuurta aad u bixisaan bay fududeynaysaa waxaan wasaarad ahaan sidoo kale maanta idin tusaynaa insha Allah haddii la hadhaa tababarka maanta berito la socon doona haddii la hadhaado in qaab aanu diin diyaarnay oo fudud oo cashuurta aad ku soo bixin kartaan iyadoo kharashaad badan iyo waqti badan bay idin seef garoobiyo waxaan tusi doonaa oo idin soo bandhignaa barnaamij idinkoo guryihiina jooga xafiisyadiina jooga aad cashuurta ku bixin kartaan aad ku faalgarin kartaan isku diiwaangelin kartaan businesskiina xogta kaga bedeli kartaan insha Allah haddii la hadhaado marka kulliba hadal badan ku dheeran maayo
maxamed cumar daariq RTN hargeysa.